بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waktiga adag ee lagu jiro dartii intay dhaceen waxyaabo dhibaatooyin asagoo marka horeba ay jireen COVID-19 oo haddana daadad waddankeeni qaadeen oo haddana umuuro adag iska jiraan oo dadkii guryaha joogaan oo aan u baahannahay duruus cibar iyo tarbiyo wata oo dadkii maadaama hooyooyinkii aabbayaasha carruurtii guryaha isla joogaan aan u baahannahay inaan waxyaabo badanoo duruusa faa'iidaysano ayaa waxaan rabaa inaan idinla wadaago 5 qiso oo kooban oo gaagaaban oo cibar iyo duruus ay ku sugan tahay oo wax laga faa'iidaysanayo. 5 qiso waxaan doortay inay mid walba mowduuc gooni ah ay xiriir la leedahay oo aynan ahayn qisooyin ayagu isku soo noqnoqonaya insha allahu tacaala. qisada ugu horeysa waxaan kaga hadli doonaa waa qiso ka hadlaysa waxa la yidhaahdo sadaqada iyo qiimaha ay leedahay, waana waaqici maanta waan u baahannahay. sadaqada maxaa laga faa'iidaa? qisadan dhegeyso. qisadana waa qiso ninkii ay ku dhacday aniga uu iiga sheekeeyey maalin maalmaha ka mid ah. waxaan u malaynayaa waxay ahayd 2016 ayaa waxaan masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam ee Madiina waxaan ka qaadanay taxi annagoo Maka u soconna, cumray ahayd. ninkii taksiilaha ahaa waa nin Sacuudi ah oo meel dhaxaad ah, nin weyn oo dhaxaad ah. yaan safka hore ama waxaan u fadhiistay shirka, marka waan sii sheekaysanay. wuxuu iiga sheekeeyey qiso naftaydii saameyn ku reebtay. wuxuu yidhi, su-aal baan weydiiye, waxaan ku idhi, maadaama ood muddo badan dadka bini aadamkaa la dhaqmaysay, baabuur aad wadid, dad badanna aad is aragtaan oo kala duwan, waxyaabaha aad ka faa'iideyn nolosha maxaa ka mid ah? waa darsi noloshaada aad ka faa'iidaysatay. wuxuu yidhi, waxaan ka faa'iiday weligay wax ilaahay dartii aan u bixiyo ma jiro buu yidhi, ilaa hadduu jiro isla markiiba ilaahay baa ii bedela. waxaan arkaa buu yidhi abaalmarintiisii. marka wuxuu yidhi, meeshaan hadda idinka soo qaaday ayaa waxaan ka qaaday niman gruub ah oo asalkooda hindi mase Bakistana, Indian subcontinent ka yimid, oo luuqad kale ku hadlaya, English iyo luuqad kale ay ku hadlayaan buu yidhi, baan soo qaaday buu yidhi. waxaan ka Madiinaan ka qaaday, Makaan u wadaa, waxaana kula heshiiyey buu yidhi 250 riyaal. markaan wuxuu qaaday oo aan Maka geeyey, xaramka derbigiisaan dhigay buu yidhi, baa inuu lacagta isiiya. markaasay wuxuu yidhi ila hadleen nuxnuxnuxnuxnu, hadalkii aan fahmi waayey. wuxuu yidhi, anigu English waxaan ka aqaanaa kelimado yaryar oo mar aan tegey buu yidhi Kenya, oo safaaradda Kenya ku taalo Sacuudiga aan ka shaqaynaya muddo yaroo kooban oo bilo ah, kelimado aan bowbowsaday yaan wuxuu yidhi English ka aqaanaa oo maqal ah. marka nimankii wuxuu yidhi muddo ay hadlaayeen yaan waxaan ka fahmay hadalkoodii inay leeyihiin, nin yahow ma aadanna fahmine, markii horeba waxaan kugu niri ilaahay dartii nagu qaad, lacag ma wadane. wixii show madaxa la ii gundhinayay buu markaan dhahayay 250 isiiya waan isfahmi weynay. wuxuu yidhi nimankii waan muddaan raftay, arrinkii baa cidhiiri geliyey, waan ka fakeray. niman taksiilayaal saaxiibanahay baan wacay, waxay dhaheen waa tuugo kuu soo shaqo tagtay, nimanka xirxir. markaasaa idhi, wallaahi qof ilaahay dartii u xiran marada cad oo labeyk allahuma labeyk ah inaan xirayn. markaasaa waxaan idhi, uu yidhi, nimanyaha anuu nin Sacuudi ah baan ahay, waan idinka qaadan karaa lacagtayda intaan idin xiro, ilaa lacagta aad bixisaan laydinma soo daynayo, laakiin ilaahay dartii yaan lacagtaa u baxsadee, orda qaata, waa hadiyad aan anigu idin siiyey, iga taga. markaan wuxuu yidhi saas u dhaqaaqay, yaa waxaan istaagay buu yidhi meel boostaajo taksi ama cab standigii ugu horeeyey oon istaagay. markaan istaagaa waxaa ii soo galay buu yidhi nin cayiran buu yidhi oo boorso jiidaya. markaasuu wuxuu yidhi airbortka Jidda ige. markaan wuxuu yidhi waxaan taraduday, waxaan isiri buu yidhi, talo ninkaan ma qaadaa mase iska daysaa? saa waxaan iri buu yidhi, waa nin muxtaram ah, qaad. markaan airbortka Jidda geeyey wuxuu yidhi, maxaan ku siiyaa?
tiriib kaloo kale maxaad qaadataa markaasaa inuu yidhi annagu haddaanan kula heshiinin hadda wax aan sheega ma garanay laakiin 150 ilaa 200 baa meeshaan lagu yimaadaa waxa adigu ii garatid si ma ina heshiinin baqshad intuu soo bixi wuxuu yiri baqshadan qaado hana furin saani waan furayaa si ilaahi baan kugu dhaariyaa ha furin saani wallahi waan furayaa aniga niyada waxa ku jirta uu yiri yaa mar labaad la sirayaa markaas ayuu yiri fur waan furay biil wallahi wuxuu yiri waxa ku jirta 2,000 oo riyaal oo sacuudi ah markaas aan qoslay biil kusii maxad ku qoslaysaa saani waxaan ku qoslayaa markaan aan ku qaadayay 2 daqiiqo wax aan dhamayn ka hor yaa waxaan ilaahay darti uga tagay $250 ilaahay baa ii bedelay oo wuxuu iga dhigay buu yiri 10 jibaarkii sadaqadu sheegtay buu iga dhigay man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha markaas intuu qoslo wuxuu yiri niyaho anigana waxaan ku qoslayaa aniga nin lacag labaanahay ma qaato tagaasidan oo kale lamaziin qurxoon baan qaataa marka aan baabuurka fiirinayay waxbaa ila hadlay oo igu yiri kan qaado anoo diidan buu yiri baa inta qadaadka la qabtay baa anoo tikhantiqa ah oo wuxuu yiri moodid in la wada la soo dhaxfariisay niyahow anigana buu yiri aniga kuma ana talagalin inaan taksiga qaatay ilaahay baa soo galiyay lacagta ilaahay baa ku keenay qaado lacagti baan qaatay buu yiri wuxuu yiri wallahi wax ilaahay darti aan u bixiyay oo isla markiiba aan la ii bedelin waligay ma ana arag waa qiso cibar la maanta waxbaan sadaqaysana waxbaan bixinaa waxbaan diraa intaas waxaan xaqiiqa haddaan saa u aamino ilaahay baa noo bedelaya haddaynaan hadda aragna waan arki doonaa qisada labaad qisadan waxaa la yidhaahdaa dadka bini aadamka ah indhaha aad ku fiirinaysid iyo qaabka aad qofka u arkaysid waxaa dhici karta adiga inay wax kaa khaldan yihiin ee dadka aad eedaynaysa mar walba iska daa dib isugu noqo waxaa dhici karta adigu inaad khaldan tahay ee khaladku uusan dadka kale ahayn reer nin iyo xaaskiisa isqaba oo dad isjecel oo isku fiicana ayaa waxay degeen intay guureen xaafad cusub bay degeen markay xaafadii degeen ayay xaasku gurigu waa guri marka cusub oo markaan la soo degay dariska ku xiga iyo ayaga daaqad baa u dhaxaysa muraayad ah xaasku markay fadhiga fariisan ayadiyo ninkeedu waxay fiirisaa dariska daaqadiisa markaasay gabadha dariska aba waxay ku dhahdaa intay ninkeeda dhagta ay u soo dhaweyso dhani gurigeeda marada ay ku tirtirayso oo ay ku dhaqato guriga ama shukumaanka guriga lagu tirtiro ee xariga saaran ee wasakhda badan may ka qaada meesha haddana maalinta dambe waxay soo saartaa gabadhii guriga lahayd waxay soo saarataa meesha alaab sida alaabtan wasakhda badan may meesha ka qaado maanta dhan gabadhan bay naqdisaa oo wax ka sheegtaa oo ceebaysaa ninku uu iska dulqaataa subaxii dambe bay meeshii soo fariisatay markaasay guri markay fiirsay waxay aragtay gabadhii alaabta meesha u saaran waa alaab wada qurxoon oo nadiif ah say tiri wallaahi naagtii dariska ahayd akhiiran waxay baratay sida guriga iyo alaabta iyo dharka loo dhaqday baratay markaasuu intuu soo jeesaday buu wuxuu yiri xabiibi ma ahayn gabadha dhibku dhibku wuxuu ahaa buu yiri muraayada noo dhaxaysa oo inaga gurigeena kamida baa wasakhaysnayd saaka intaad huruday baa intaan kacay baan muraayadii tirtiray buu yiri marka muraayadeena bay ahayd waxa qashin kale ee gabadha dharkeeda ma ahayn ee waxaad samaysaa hadda kadib markaad qofka fiirinayso indhahaaga iyo qalbigaaga nadiifi wax wanaagsan baad arkaysaa xaqiiqatan qisadaas cibar baa ku sugan oo waxay ka turjumaysaa dadka maanta oo dhan negative-ka sheegaya oo wax sheegaya oo dadka duraya culimo iyo caamo iyo deris iyo qaraabo iyo taajir iyo faqiir iyo cadaan iyo madow qof kasta uusan ka nabadgelaynin lacalla waxaa dhici karta mushkilooda inay adiga xaggaaga tahay amaad cuqdad qabtaa amaad qalbiga ka jiran tahay ama xasad kugu jiraa ama adiga wax kaa khaldan yihiin ama wax bal dib isugu noqo masaladaasay ka turjumaysaa qisada saddexaad waa qiso ka turjumaysaa qofka bini aadamka ah hayasin oo waxaa ka sheegin ilaa duruuftiisa bal aad waraysato ood qadariso waxaa dhici karta inuu qofku si kuula muuqdo
laakiin waxaa dhici karta duruufta u qarsoon qofkaas ee sidan ka dhigaysa inaad adigu fahansanayn. waxaad arkaysaa qof qaylinaya, waxaad arkaysaa qof murugaysan, waxaad arkaysaa qof ooyaya, waxaad arkaysaa qof baahan. dadka ha ku jeesjeesin, hana u arkin qofkani inuu iska yeelaya ama inuu shaqaysan waayo ama inuu wax maqabsado yahay, ee waxaad marka hore waristaa qofka xaaladiisa. waxaad dhici karta markaad xaaladiisa ogaatid inaad adigu mowqifkaaga bedeshid. nin maraykan ah ayaa wuxuu ka sheekeeyey magaalada Chicago buu yidhi, yaa wuxuu yidhi tareen baan soo raacay. tareenkii markaan soo raacay Chicago iyo New York iyo dadku way yaqaanaan Boston iyo waa magaalooyinka tareenka badan. aan soo raacay tareen aad u weyn, nin baa fadhiya buu yidhi. ninka wuxuu yidhi waa nin dadkan Eeshiyaanka u eg, marka caruur buu wataa. caruurtiisu tareenka bay ku cayaarayaan. wixii isagu iska fooraraa, lama hadlo, caruurtu way boodboodayaan, way ugu tunteen, dadkii bay dul mareen, marba meel bay u yaaceen, way qaylinayaan. waan xanaaqay, aad baan u xanaaqay. markaasaa intaan ku soo jeedsaday oon ag fadhiista waxaan ku yidhi caruurtaada maad edbisid oo dadka aad ka celisid, waa iska fadhidaa ayaguna annagayna wareeriyeen. markaasuu intuu saa ii fiiriyey, yaa ilmaa ninkii ka timid buu yidhi. markaasuu wuxuu yidhi haddaad ogaan lahayd xaaladooda saas ma aadan dhahdeen. saanuri maxaa dhacay? markaasuu caruurta aad u jeedid hooyadood ayaan hadda soo duugay oo qabrigii hooyadood ayaan ka nimid oo kansar u dhimatay. markaasaa waxaan is iri xoogaa relief ha dareemeen oo ha ordeene iska daa. marka waxay isku ilowsiinayaan buu yidhi wixii ku dhacay iyo murugadii hayse. wuxuu yidhi intaan dib isugu noqday baan anigii ilmeeyey buu yidhi. markaasaa waxaan iri buu yidhi haddaan fahansanaan lahaa ma ana ku weydiiyeen su-aashaas, saana kulama hadleen. waxaa dhici karta ikhwaani inaan qof weeraro oo aan qof ataagno oo aan qof wax ka sheegno oo aan qof dulmino, laakiin aynaan ogeyn qofka xaaladiisa iyo xaqiiqadiisu say tahay. gabadha yarta ah oo aad leedahay waa halowday, iyo wiilka yarka ah oo jidka taagan oo leedahay wuu halaabay, iyo maamada maskiinta ah oo aad leedahay laydka bay dhaafaysaa iyadoon u jeedin. waxaa dhici karta inay mushkilaad iyo duruuf khaas u jiraan oo aadan ogeyne dib uga fiirso. qisada afraad oo raba inaan idinla wadaaga waxaa weeye dulmiga waa dulumaad maalinta qiyaamada ah. adduunkana qofka dulmi sameeya waa laga abaalmariyaa. qisadan waxaa weeye nin waxaa ka sheekeeya carab ah, wuxuu yidhi wadanka Ciraaq iyo Suuriya iyo dhulkaas Masar iyo ayaan ka tijaaraysan jiray. marka ninku xooluu soo gadaa lo wuu kaxeeyaa, Shaam buu ka keenaa, Ciraaq buu geeyaa, Masar buu geeyaa, markaasuu ka taajiraa. wuxuu yidhi anoo hameen soconaya yaa waxaan u yimid reer meel cidla degan. markaasaa waxaan isu reerkii baan martiyey buu yidhi. reerkii markaan martiyey oo loodii la ii xareeyey buu yidhi oo aan reerkii wuxuu yidhi u hoyday, ayaa reerka waxaa jooga nin iyo xaaskiisa iyo hal cunug oo ay dhaleen oo madi ah, cunug kale ma leh oo cunug weyn ah. markaasaa wuxuu yidhi aad la ii soo dhoweeyey, qol baa lay seexiyey buu yidhi, aniga wiilkii baa isla seexanay. markaan wuxuu yidhi aan seexanay ayaa ninkii baan isla cashaynay buu yidhi, markaasaan sheekaysanay. markaasaa waxaan ku iri buu yidhi nin taajir ah baan ahay oo maalqabeen ahoo lacag badan iyo waxaan wataa xoolo oo saasaan ka ganacsadaa. xaaskiisii buu show markay sariirta isla seexdeen buu u sheegay. markaas waxay tii war ninkan qariibka ah oo qof yaqaano uusan jirin oo cidladan ka cakufaya aan dillo xoolahana aan ka qaadano. markaasuu yidhi naa ilaahay ka cabso, naa ilaahay ka cabso, naa ninkan waa marti. markaasay tii war yaa og aan dillo xoolahan aan ka qaadano. say u bushgaraynaysa oo u waday bay ka dhaadhicisay. markay ka dhaadhicisay ayuu wuxuu yidhi qisada ninkii baa ka sheekeeyey, sababtoo ah sheekadii iyo dadka ku dhacday iyo wixii o dhan waa la yaqaanaa gadaal marka loo fiiriyo. wuxuu yidhi markii aan seexanay iyo waxay ku heshiiyeen ninka in hameenbarkii la qabto isagoo hurda, madaxa wax loo geliyo, la gowraco, banaanka loo jiido, la duugo, xoolahana la qaato. ninkii nin maskiin abuu ahaa oo daacad ah, markii xoogaa la gami rabay buu wiilkii la hadlay.
markaasuu wuxuu ku yidhi adeen dhaxan xun baa haysee daaqadda adaa dhalinyaree seexo dhinaca kale ii bedel dhinacii buu u bedelay wiilkii daaqadu seexday ninkiina dhinacaasu seexday ninkii iyo habartii baa soo galay wiilkoodii oo daaqada hurda ilaan meesha ninku seexday buu ogaa ayaa madaxa inta wax loo geliyay baa la gowracay madaxii baa la gooyey gaf markaasaa banaanka loo bixiyey banaanka markii loo jiiday oo la damcay in la duugo dayixii baa ku dhacay mise waa wiilkii markaasay naagtii gablamayay oohin bay la fariisatay ninkiina oohin buu la fariistay ninkii baa salalay soo kacay wuxuu u yimid naagtii iyo ninkii oo madaxa ciid iskaga shubaya oo gablan iyo hoog iyo ba u yeeranaya markaasuu yidhi war maxaa idinku dhacay markaasay waxay dhaheen inaan ku qallaan rabnay markaasaan wiilkii keliya oo noo joogay qallay saan xoolaha kaaga qaadano tanaa iilahayd buu isagu leeyahay oo balaayadii iyo baaska i fartay oo caawa i gablamisay intii wuxuu yidhi ooyayeen ayaa intaan lo'deydii dareersaday baan ka guureeyey buu yidhi waxay caddaynaysaa maanta waxaan aragnaa dad badan oo dulmi isku bareeshar gareeya ninba xaasis wuxuu ku bareeshar garaynayaa aan separate kala noqono aan income hello aan dad dhacno aan wax samayno dukaamaa la dhacaa oo dad baa la dhacaa oo caruur baa wax laga sheegaa oo qof baa la dulmiyaa oo deriskaa la dulmiyaa oo xasaska laysla qabaa isdulmiya oo gabadha wiilku qabaa la dulmiyaa oo gabadhaa dulmida maamada wiilkeeda dhashay oo wiilkaa wuxuu dulmiyaa gabadha uu qabo walaalaheed oo reer dadki waa las dulmiya laakiin waxaad ogaataa koob dulmi a maalinta aad cabto xaqiiqo waxaa ah in asagana lagu waraabinayo lagu darayo ogow maalinta aad qof dhadhansiisa dulmi adigana waa u dhadhansiinaya adduunka iyo aakhiradaba arrinkaas la soco insha allahu tacaala qisada ugu dambaysa oo afraad oo aan rabo in aan walaalahay la wadaago waxa weeye qiso afraad oo caddaynaysa marar badanna qisadan waan ka sheekeeyey hadduu qofku hagaagsan yahay oo uu wanaagsan yahay oo uu ku tooso diinta ilaahay khaatimo wanaagsan ayaa adduunkiisa loogu khatimaa qisadan waxay leedahay nin masaari ah ka sheekeeye wuxuu yidhi waa nin imaam ah oo sheekh ah wuxuu yidhi maalin kastoo jumco ah waxaa igu hortukada wiil yar oo qurxoon oo aabbihii la socda oo qamiis iyo cumaamad wata jumcadii dambaan waayey buyi jumcadii labaad ayaan aabbihii arkay buyi saa waxaan ku iri buyi wiilkaagii ma aana arag jumcadan iyo jumcadii hore ee maxaa dhacay markaasuu ilmeeyey ilmaa tiri laka tiri markaasuu wuxuu yiri buu yidhi wakhtigaa dhammaanaya wuxuu yiri buu yidhi ma ogid kama ooyin canuga suu ku dhintay ee waxaan ka ooyay wixii aan ka arkay markuu dhimanayay markaasaan iri buyi maxaad ka aragtay markaasuu wuxuu yiri buu yidhi wiilkan 15 sano jiray wiil baari abu ahaa laakiin wuxuu ahaa ehludiin wuxuu samayn jiray buu yidhi maanta oo dhan markuu arkay cajaro diini ah ama muxaadaro intuu wuxuu soo koobiyeeyo ayuu reerka u qaybin jiray salaada fajarka asagaa noo kicin jiray cibaadaadkana asagaa na amri jiray muxaadaradu dhageystana wuu noo muraajacayn jiray oo wuu noogu celin jiray buu yidhi ilaahayna waa u dhawaabiye annagana baari buu noo ahaa jumcadii lasoo dhaafay buu yidhi ayaan wuxuu yidhi subaxii 9 subaxnimo wuxuu yidhi aabba waxaan rabaa waan degdegayaaye inaan masaajidka u hormaro baan rabaa markaasaan iri orod wuxuu yidhi isagoo ordayo laamiga goynaya yaa baabuur ku dhacay markaasaa waxaa la geeyay isbitaalka waa la ii wacay buu wiilkaagii baa isbitaalka yaalla isbitaalka markaan tegey waxaan u tegey isagoo koomo ku jiro suuxsan dhakhaatiirtii dhan baa isugu yimid inuu nool yahay inuu dhintay lama kala garanayo laakiin waxay leeyihiin weli naf baa ku jirta si loo kortaagnaa buu yidhi ee loo kortaagnaa ayaa markii wuxuu yidhi jumcadii la gaaray oo masaajidkii uu ku tukan jiray laga aadaamay oo muadinku yidhi allahu akbar ayuu wiilkii farta kor u qaaday wuxuu yidhi allahu akbar si muadimkii ashhadu an laa ilaaha ila allah si ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ashhadu anna muxamadan rasuulullah xaya cala asalaah لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر مركو لا إله إلا الله ولا إله إلا قعنت أصدوا يدعي بي خاتمه وحده مو فعنا سار ما فعنا عن نفتنا ويكب حضي خاتمه وناكسن هذا الدون كدلاشد وخير كدلاشد والله إلهكم ما ضيعيه صدقة يا صلاة يا قرآن أخرسك يا حجابك يا خيرك
iyo wanaagga aad wadid ba khaatumada ilaahay kuugu hagaajinayaa yaynaan ka zuulin daqiiqad kasoo daqiiqadahana ka mid ah inaan wanaag ku dhex jiro yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun adigoo oon muslim ahayn ha dhimanin jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu